muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago FBI-da Mareykanka oo shaacisay liiska 8 qof oo nin Soomaali ah uu ku jiro oo ah dadka baxsadka ah oo lacaga fara badan intay Mareykanka ka musuqmaasuqeen wadanka ka baxsaday lacago abaalmarin ah dul dhigtay qofkii soo sheega halka ay ku sugan yihiin dadkaasi maxay yihiin 8daasi qof ninka Soomaaliga ah ee ku jirana muxuu yahay imise lacaga ayuu ku eedeysan yahay arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagaya madaxweyne Trump oo shalay markii ugu horeysay wareysi uu siinayay telefishinka NBC qiray in Iran ay wali xoog badan tahay markii la weydiiyay muddo bila ah madaxweyne waxa dhahaysay Iran qoys ay taagan tahay heshiis ayay rabaan inay qaataan laakiin maxay ilaa ay hadda ay heshiis u qaadan la yihiin madaxweynuhu muxuu uga jawaabay ugu dambeyntiina Trump wuxuu wareysigaasi u soo gabagabeeyay isaga oo aan dhammaan su'aalaha uu dhibsaday in la weydiiyo maxay yihiin waan idinla wadaagaya kiiskii Feeding Our Future oo Soomaali fara badan ay ku eedeysnaayeen lacag inay ka musuqmaasuqeen oo haweeneydii Amy Bark ay madaxda ka ahayd taasi oo bishii la soo dhaafay 22keedii lagu xukumay waxa jiray nin Soomaali ah oo magaciisa la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Erek oo haweeneydaasi la taliyo u ahaa dadka Soomaalidana ku soo dari jiray Feeding Our Future si ay halkaasi ururadooda ugu soo darsadaan lacagana ugu qaataan in ninkaasi uu baxsaday ka hor intii aan musuqmaasuqa lagu dhawaaqin lacaga fara badanna uu horay u qaatay haddaba FBI-da ayaa waxay Khamiistii soo saartay liiskii ugu horeeyay dad 8 qof ah oo ninkaasi uu ku jiro oo ku eedeysan in ay musuqmaasuqeen lacaga fara badan wadankana ay ka baxsadeen oo ay baxsad yihiin lacaga ayaa la dul dhigay qofkii soo sheega halka ay ku sugan yihiin dadkaasi soo qabashadooda ilaa iyo marka dambiga lagu helayo la hadii qofka soo sheegana lacagahaasi ayuu heli doonaa haddaba FBI-da 8 qof oo shaaciyeen waxa ku jira sida ay sheegay ninkan lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Erek oo isagu ku eedeysan kiiskii Feeding Our Future liiska dadka FBI-du ay baadigoobaysa oo 8 qof ah ayuuna ku jira waxa uu dukaan ku lahaa koonfurta Minneapolis isla markaana waxa uu ku eedeysan yahay in uu musuqmaasuqay lacag gaaraysa 4.2 milyan oo dollar oo barnaamijkii Feeding Our Future oo xilligii coronavirus-ka loogu talagalay caruurta in lagu quudiyo cuntadaasi in lacagahaasi uu ka lunsaday marka FBI-du waxay sheegtay qofkii soo sheega halka uu ku sugan yahay ama warbixin horseedaysa in la soo qabto iyo waliba in dambi lagu helo waxa uu helayaa qofkaasi abaalmarin lacageed oo dhan ilaa iyo 150,000 oo dollarka Mareykanka ah marka waxa uu ku eedeysan yahay marka Saciid Cabdullaahi Erek musuqmaasuq ay ka mid yihiin in lacago si sharci darro ah uu wadanka dibadiisa ugu xawilay iyo sidoo kale lacago fara badan in uu isdaba mariyay marka FBI-du waa markii ugu horeysay la leeyahay Khamiistii ay bilowdo liiskan dadka musuqmaasuqa ku eedeysan ee wadanka baxsadka ka ah shacabka ayayna sawiradooda u soo bandhigeen dadkan isla markaana qof kasta oo soo sheega 8daasi qof ka mid ah lacagahaasi ayuu helayaa wiilkaasi Soomaaliga ah marka ayaa ku jira ninkaasi Soomaaliga ah oo la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Erek oo FBI-du ay dul dhigtay lacag gaaraysa 150,000 oo dollarka Mareykanka qofkii soo sheega halka uu ku sugan yahay kulay Soomaaliya ayuu u baxsaday sida la filayo marka intii u dhaxaysay April bishii 4 2020 ilaa iyo bishii 4 2021 ayaa goobtiisa ganacsiga waxa uu si been abuur ah u sheegayay inuu ku quudinayay caruur fara badan isla markaana uu siiyay cunto gaaraysa 1.4 milyan oo cunto ah waxana uu helay 4.2 milyan oo dollarka Mareykanka ah uu qaatay marka Saciid waxa la leeyahay inta badan lacagtaasi qoyskiisa ayuu ku taageeray in nolol qaali ah ay ku noolaadaan waxana jirta in lacaga fara badan uu ku xawilay account dibadda ah kuwaasi oo ay maamulaan kambaniyo sidoo kalena ajnabi ah ayuu lacagtaasi inta badan ku xawilay oo wadanka dibadiisa ayuu lacagtaasi u xawilay marka waxa dacwad lagu soo oogay Saciid Cabdullaahi Erek dacwadahaasi oo kala ah in lacago uu si sharci darro ah u xawilay iyo sidoo kale isdaba marin lacageed dacwadahaasi waxa lagu soo oogay oo warranty federaal ah in la soo xiro loo jaray bishii January 24 sanadkii 2024 marka ninkan dacwado ayaa lagu soo oogay laakiin wadanka waa uu ka maqan yahay waa uu baxsaday inuu Soomaaliya tagay ayaana loo maleynaya marka liiskan sidoo kale waxa ku jira uu Saciid ku jiro 7 qof oo kale
oo iyaguna wadanka ka baxsaday lacaga fara badan intay musuqmaasuqeen kadib. waxaana FBI-du ay sheegtay inay doonayso in dareenka dadka shacabka ay ku soo jeediso raggan baxsadka iyo dumarkan weliba isugu jira oo baxsadka ah islamarkaana lacaga fara badan oo dambiye dhinaca dhaqaalaha galay islamarkaana lacagahaasi faraha badan la baxsaday. liiskan waxaa sidoo kale ku jira dad lacagaha ay xadeen ay u dhaxeeyaan ilaa iyo 1.3 milyan ilaa iyo 1.2 milyan inta u dhaxaysa, weliba qaar ayaa ka badan lacagahaas intaasi la eg ayay dadkan ay xadeen oo ay la baxsadeen. waa markii ugu horreysay oo la leeyahay FBI-du liiska dadka musuqmaasuqa ku eedeysan dadka loogu raadinta badan yahay ay ku soo darto FBI-da. marka waxa FBI-du ay qoraal saxaafadeed ay soo saartay ay sheegeen musuqmaasuqu dhibane la'aan ma ahan oo dad ayaa mar kastaba musuqmaasuqa dhibane u ah. waxay sheegeen dad fara badan lacagahoodii sayfinka oo ay kaydsadeen in ay ku lumiyeen, dad ayaa guryahoodii ku lumiyey, dad ayaa ganacsiyadoodii ku lumiyey, dadna sidoo kale benefitiskii ay ku tiirsanaayeen. markii hore dadku waxaa jira markay shaqeeyaan waxay helayaan lacago iyaguna ay social security-ga lagu siiyo. marka qofku markuu duqoobo lacagihii uu heli lahaa ayuu halkaasi ku luminaya. marka waxay leeyihiin qof kasta oo soo sheega 8daasi qof mid ka mid ah halka uu ku sugan yahay warbixin horseedaysa in FBI-du ay gacanta ku soo dhigto abaalmarin ayaa loo ballan qaaday. laakiin anagu ninka Soomaaliga ayaan ka soo qaadanayna oo $150,000 loo ballan qaaday qofkii soo sheega. waxaa jira dadkan qaar ayaa 7 milyan ku eedeysan, qaar 10 milyan, laba ka mid ah min 1.3 milyan ayay ku eedeysan yihiin. qof ayaa 32 milyan ku eedeysan, qof ayaa 1.2 bilyan ku eedeysan, qof kale 34 milyan ayuu ku eedeysan yahay. marka lacagahaasi kala duwan ayaa dadkaasi ay musuqmaasuqeen wadankana waa ay ka baxsadeen. marka sawirkoodana waa kan idiin muuqda. qof allaala qofkii garanaya dadkaasi waxa waaye lacaga ayaa FBI-du ay dul dhigtay qofkii soo sheega halka uu ku sugan yahay. dhinaca kale madaxweyne Trump waxaan ognahay muddo bilooyin hadda dagaalkan Iran uu kula jiro ku dhawaad 100 maalmood ayuu hadda ku sii dhow yahay. marka 3 bilood ayuu kor u dhaafay. Trumpna waxa uu ku celcelinayay Iran quus ayay taagan tahay, ciidamadoodii waan burburinay, kuwii badda weliba difaacoodii cirka madaxdoodii waan baabi'inay. marka quus ayay taagan yihiin inay heshiis qaataan, laakiin ilaa hadda ma muuqdo heshiis labada dhinac ay gaarayaan. shalay Trump waxa uu wareysi siiyey telefishinka NBC gaar ahaan barnaamijka axadda baxa ee Meet the Press. barnaamijkaasi marka wareysiga shalay Trump waxa uu ku bixiyay gobolka Wisconsin. halkaas waxa uu kula kulmayay beeraleyda, maadaama beeraleydu lacaga fara badan ay ku lumiyeen taarifkii uu Trump soo rogay. haddana xirnaashaha marinka Hormuz waxyaabihii beeraha marka la beeraya lagu bacriminayay ay qaali noqdeen. marka Trump beeraleyda ayuu halkaasi kula kulmayay. hoolka marka uu kula kulmayay oo ah meel beer ah islamarkaana cows fara badan uu yaallo ayaa aqalka cad waxay go'aansadeen Trump in wareysiga looga qaado. roob xooganna waa uu ka da'ayay gobolka Wisconsin. marka saqafka meeshaasi hoolka ah waxaa roobka marka uu ku soo dhaco qabqab fara badan ayaa laga maqlayo. dhowr jeer ayaa xitaa wareysiga dib loo dhigay maadaama roob xoogan uu da'ayay. Trump marka su'aalo kulul ayaa la weydiiyey. waxaa ka mid ahayd madaxweyne dhowr bilood waxaad leedahay Iran quus ayay taagan tahay oo heshiis ayay rabtaa inay qaadato, maxay ilaa iyo hadda ay heshiiskaasi u qaadan la'yihiin? marka Trump waxaa waaye geedaha ayuu ku soo rugtay oo wuxuu yidhi madaxdii iga horreysay madax tabar daran ayay ahaayeen, Iran heshiis lama gaari karin. ugu dambeyntii waxa uu qirtay Trump Iran inay weli xoogan tahay islamarkaana ay isla qab weyn yihiin. waxuu yidhi they are strong and they are very proud. waxuu yidhi aad ayay u faanayaan oo iskula qab weyn yihiin, sidaas darteed ma doonayaan inay si fudud heshiis ay ku qaataan. Trump afkiisa ayuu arrintaasi ka qiray. marka sida muuqata Trump waxuu leeyahay Iran weli waa ay xoogan tahay, sida muuqatana Iran sidii loo maleynayay ma aysan noqon markii Mareykanka iyo Israa'iil ay weerarka ku qaadeen kadib. haddii xitaa madaxdoodii sare la dilay oo inta badan ciidamadoodii badda la baabi'iyey, Iran waxa la leeyahay 70 ama 90% gantaaladoodii waa ay haystaan, iyo weliba gantaalada kuwii laga tuurayay iyo droniskooda aad u fara badan ayay haystaan. bal waa kan Trump oo su'aashaasi gabadhan Kristen Welker ay weydiisay qaabka uu uga jawaabay. marka madaxweyne Trump markii dambe wareysiga waa uu joojiyey, maxaa yeelay waxaa la weydiiyey su'aalo la xiriira
doorashooyinka iyo madax banaanida doorashooyinka Mareykanka. Trump inta badan waxa uu dhaliilaa in doorashooyinka waraaq lagu dhiibto by mail. Waxa uu leeyahay dadku waa inay imaadaan goobta codbixinta maalinta doorashada oo ay codkooda dhiibtaan. Waxa uu leeyahay waa musuqmaasuq doorashooyinka mailka lagu dhiibto. Marka gabadhu markii su'aalo arrimahaasi la xiriira madax banaanida doorashooyinka Mareykanka iyo arrintan mail-in ballotka, Trump wareysigii waa uu soo gabagabay. Wuxuu yiri wareysigan siima wadi karo goobtiina waa uu ka istaagay. Marka sidaas ayaa wareysigiina lagu soo gabagabay isagoo waqtigii loogu talagalay inuu dhammaado gaarin ayuu Trump kursiga isaga kacay wareysigiina uu soo gabagabay. dhinaca kale doorashooyinkii talaadadii ka dhacay gobolka California weli tirintii codadka ayaa socotay waa ay soo gabagabowday. Musharaxa gudoomiyaha gobolka California u sharaxan ee dimuqraadiga oo wasiirkii hore caafimaadka maamulkii Biden ahaa Javier Becerra ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay 26.7% ayuu helay. Waxa ay November tartami doonaan Steve Hilton oo dhinaca Republicanka u sharaxan oo isaguna gudoomiyaha gobolka California doonaya, Trumpna oo taageeray oo 26.4% helay. Marka 16,593 cod ayaa labadooda u dhaxaysay. Marka waa doorasho aad isugu dhow. November marka tartan xoogan ayaa labadooda dhexmari doona. Dhinacii sidoo kale duqa magaalada Los Angeles amaba LA waxaa kaalinta koobaad ku soo baxday Karen Bass oo 35% heshay codadkii la tiriyay. Sidoo kalena Spencer Pratt ayaa isaguna kaalinta labaad ku soo baxay oo 28.2% isagu helay. Marka labadooda ayaa waxay ku tartami doonaan duqa magaalada Los Angeles November marka la gaaro, waxaana u dhaxaysay labadooda codad gaaraya 41